السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa EBC News Now. dawladyaal ku soo dhawaada war degdeg oo hadda la soo gaaray. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa isagu ka hadlay shaqaaqadii ka dhacday magaalada Boorama, isla markaasina waxa uu halkaasi tacsi u diray shacabkii halkaasi ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay iyo ciidanka qaranka iyagu qudhoodu kuwii waxyeeladu ka soo gaadhay dhaawaca ka soo gaadhay. madaxweynuhu waxa uu faray ciidamada qaranka in si degdega ay halkaasi uga soo baxaan magaalada. sidoo kale madaxweynuhu waxa uu u furay wadahadal labada dhinac, dadka shacabka reer Boorama iyagu markaasi tabanaya iyo dowladda uu ka yahay madaxweyne mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. waxa uu sheegay in wadahadal wax walba lagu dhameeyo, muhiimna ay tahay in liiska la isugu yimaado. haddaba madaxweynaha hadalkiisii isaga oo khudbadaasi dheer u jeediyey ayaa halkan aan idinku soo gudbin doonaa. haddaba hadalkii madaxweynaha waxa uu ahaa sidan: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شعبك reer Somaliland dhammaantii, gaar ahaan shacbiga magaalada Boorame, guud ahaanna gobolka Awdal, gobolka xadaaradda, nabadda iyo aqoonta ee Somaliland. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. caawa waxaan tacsi tiiraanya leh u dirayaa dhammaan shacbigii ku geeriyooday mudaharaadkii ka dhacay magaalada Boorame xalay ilaa maanta. sidoo kale waxaan alla uga baryayaa inuu u boogadhayo dhammaan dadkii nagaga dhaawacmay shacab iyo ciidanba. waxay ahayd dhib laga baaqsan karayay haddii caqliga la isu geeyo. waxay tahay dhiilo iyo dhegxumo aan dhegaha reer Somaliland u wanaagsanayn. waxaan murugada iyo xanuunka la qaybsanayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay waxyeeladu ka soo gaadhay mudaharaadka. ilaahayna waxaan inooga baryayaa inuu dhibta inaga dulqaado. xukuumaddu waxay diyaar u tahay in eheladaas cawildhaq iyo gurmadba loo fidiyo. saacadihii aynu soo dhaafnay, ummaddeenna waxay wajahday xaalado xanuun badan. waxaa dhacay khasaare ka farxiyey in badan oo jecel in Somaliland maalin uun ay wax noqoto, kana nixiyey cid kasta oo xaqdhowr u haysa xurmada nafta alla siiyey iyo isku tashiga iyo nabadda qarannimada Somaliland. walaalayaal, anigoo caawa huwan sharaftiinnii madaxweynenimo aad igu doorateen, waxaan idinla hor imi inaan idinla qaybsado murugada iyo xanuunka geerida, dhaawaca, burburka, danta guud iyo khasaaraha ka dhashay wararka uu si xun waxu sheegu inagu soo dhex tuuray. taariikh waxayna bartay xaqiiqda ah inaanay ciidina dhayal ku qaadan karin dhul iyo deegaan cid kale ay degto. maantana suurtogal ma noqonayso in gobolka Awdal ay taariikh cusubi ka qoranto oo ay tirtirto taariikhdaas qarniyada soo jirta. cid kasta oo u fekerta inay taasi dhici kartana waa cid aan aqoon u lahayn ilbaxnimada dadka gobolka iyo haladayga ay weligood ku ilaashanayeen hiddahooda iyo lahaanshahooda taariikhiga. kumanaan sano ayaynu dhulkan ku soo dhaqnayn innagoo intan ka Itaaliyar. shisheeye ku soo duulay oo inaga awood badan ayaa inaga qaadi kari waayey. maantana ma jirto cid awood u leh inay qaaddo meel cid kale ay degan tahay ama ka riixi karto. walaalayaal, dowladnimada dadka oo dhan baa leh. sidaa awgeed, madaxweyne ahaan waxaa igu waajib ah inaan cid walba xaqeeda dhowro, cidna aanan ka oggolaan dulmi cid kale xaqeeda
ku qaadan karto wixii dhacay baadhis rasmi ah ayaannu ku wadnaa qaladaadkaa dhacayna waa laga xisaabtami doonaa muwaadiniinta aynu jecelnahay ee maalmaha khayr kale inaga geeriyooday iyo inta waxyeelladu soo gaadhay shacabka iyo ciidankaba waxay heli doonaan xuquuqdooda iyo daryeelkooda ay mudan yihiin waxa aan faraya dhammaan ciidamada qaranka ee milatariga ee magaalada ku jira inay dib ugu noqdaan xeryahooda sida oo kale waxaan ugu baaqayaa salaadiinta madaxdhaqameedka aqoon-yahanka ganacsatada reer somalilan inay degdeg uga howlgalaan sidii uga qayb noqon lahaayeen xasilloonida gobolka awdal iyo caasimadiisa bowran walaalayaal ha laysdi noloshii magaalada caadi ha lagu soo celiyo cibaadada alleh ha loo jeesto shaqooyinka ha lagu noqdo mas-uuliyiinta odayaasha sharafta leh ee dhaqanka iyo waxgaradkana ha la dhegaysto ugu dambayn anigoo ah madaxweynihii aad aqlabiyadda ku doorateen walaalayaal waxaan si dhab ah iiga go'an in wax kasta oo la tabanayo lana tirsanayo inaan wada hadal ka furno oo miiska dushiisa ku xallino si oo aan dhiig inaga daadan magaalooyinkeennuna inaga dumin ma jiro wax iga qaalisan dhiigga dadkayga inaanu daadan mana jiri doono waxaynu ku khasbannahay qaadashadiisa haddii aan laga wada tashan waa tahay daawadayaal sidaa wada arkaysay baa madaxweynuhu waxa uu ka dhawaajiyey in ciidamada laga soo saaro magaalada boorame gabi ahaanba ciidanka qaranka balse waxaa su-aal isweydiin leh halka ay ku dambayn doonto xaaladan iminka ay boorama ku jirto runtii waa wax aad iyo aad looga xumaado in shacab ay ku dhintaan mudaharaad islamarkaasina ay dowladdu u adeegsato xabad nool oo markaasi ay shacabkaasi ku waxyeelayso arrimahan ayaa waxay noqon doonaan wax ku cusub somalilan iyadoo la ogaa wixii ka dhacay magaaladii laascaanood 2023kii haddaba madaxweynaha waxa uu amray dowladdiisa in ay wadahadal arrinta ku dhammeeyaan islamarkaana shacabkuna ay wadahadal arrinta ay isugu yimaadaan oo ay waxgaradka iyo cuqaasha iyo dhammaan shacabka reer boorame ay iska kaashadaan sidii ay dib ugu soo noqon lahaayeen nolol maalmoodkeedii caadiga ahaa iyo shaqadoodii iyo howlahoodii haddaba wixii warare ka soo kordhaa arrintan dib ayaannu idinkala soo socodsiin doonaa